بسم الله الرحمن الرحيم macaamiisheena sharafta leh ee ku xiran shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal soo dhawaada ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada adeeg hufan oo idin raali geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiin soo gudbinaynaa guri iib ah weliba guri fillo ah oo iib ah ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan insha allahu tacaala walaalayaal waxaa iib ah gurigan fillada ah ee aad hadda aragtaan sida ujeedaanba waa guri qurux badan dhismo cusub ah si fiican u dhisan marka ku soo dhawaada waxaan guda galayaa xogta gurigan fillada iibka ah oo dhameystiran ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo gurigan waxa uu ku yaalaa magaalada muqdishona waxa uu uga sii yaalaa degmada wadajirna waxa uu uga sii yaalaa xaafadda korontada waa Sona Madiino waxaa la isku dhahaa degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenley marka gurigani waa qaybta Wadajir haddii aan tilmaan kale kasii bixiyo waxa uu u dhow yahay labada laami laamiga korontada ka baxa isgoyska korontada ee Xalana aada iyo ama laamiga Xalana loo yaqaano iyo laamigan kale ee suuqa weyn aada ee korontada ka baxa marka labadaas laamiba aad ayuu ugu dhow yahay runtii waa guri meel istiraatiiji ah ku yaalo haddana meel taag ah saaran sida muuqaalkaba ka aragtaan gurigaas quruxda badan leh ayaa ka dhisan marka hala soo dhawaada halaga faa'iideysto laamiga Xalana ee jasiiro aada waxa uu ka xigaa ama waxa u jiraa ilaa 5 boos laamigan kale ee suuqa weynna waxa u jiraa ilaa 10 boos marka waa istiraatiiji labada laami waa u dhaxeeya dhanka gadaal waxaa ka sii xiga suuqa weynaa ee Madiina ama suuqa weyn suuqa loo yaqaano haddii aan ka hadlo cabirka oo gurigan ku fadhiyo walaalayaal waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 20 lagu dhufto 10 ama finti bardiyeeshe dadka qaarkood sida u yaqaanaan wejiga hore waxa uu yahay 10 mitir dhirirkana waxa uu yahay 20 mitir waa cabirada kuwa ugu macquulsan asalkiisa hore waxa uu ahaa dhulkaani finti ama 20 lagu dhufto 20 marka waxaa loo kala dhisaa sida badan ama loo dhisi karaa laba qayb laba fil in laga dhisay ayuu u muuqdaa marka waxaa iib ah waa hal filo oo kamid ah ama nus kamid ah booska laakiin waa cabir weyn oo gurigaas weyn ayaa ka dhisan haddii aan ka hadlo walaalayaal qolalka uu ka kooban yahay gurigan fillada ah waxa uu ka kooban yahay ilaa 6 qol sidoo kale waxa uu leeyahay 2 musqul jiko baarkin qolkaas irid banaanka ah sida muuqaalka aragtaanba ayuu leeyahay waa dhismo casri ah gudaha inaan galno nooma suuro gelin laakiin haddii aad gurigan daneynaysid markaad timaado waa lagu tusinayaa gudaha waa arkaysaa insha Allah laakiin banaanka ayaaba ka dheehan kartaa guriga dhismihiisa sida uu yahay haddii aan ka hadlo walaalayaal jidadka uu leeyahay gurigan fillada ah waa hal jidle wejiga hore ayaa waddo ay ka martaa dhinacyadana sida aragtaanba waxaa ka dhisan guryo geesaha ee gadaalna guryo kale ayaa ka saaran marka waxaa uu leeyahay halkan waddo ee guriga hormarta yacni ma aha laba jidle walaalayaal haddii aan ka hadlo jihada
ee wadada ka marta ama gurigan dhanka u jeedo, gurigani waa bari ujeed. Wadada waxay ka martaa dhanka bari. Runtii bari ujeedka waa kan loogu jecel yahay oo xilli kasta waxaa la hawo macaan iyo qabow ayaa looga dhargayaa. Galbihii oo kale wuxuu yeelanayaa jalbeeb fiican. Hortiisa dhan guriga waxay noqonaysaa hoos. Meeshaas ayaa kuraas ka soo dhiganaysaa, guriga hortiisa iska fadhiisanaysaan, hawo macaan ka qaadanaysaan. Marka waa waxyaabaha uu ku fiican yahay mid ka mid ah. Haddii aan ka hadlo walaalayaal dhanka dukumentiga oo ah meesha ugu muhiimsan ama meesha koowaad ee laga qiimeeyo dhul ama guri marka la gadanayo dhammaan hantida maguurtada ahba. Walaalayaal dukumentiga uu gurigani leeyahay waa dukumenti Maxamed Siyaad Barre ah oo nadiif ah, rasiid iyo sabarloog warqadihiisa oo dhan ay u dhameystiran yihiin. Runtii waa dukumenti asal ah, waa noocyada loogu jecel yahay. Xaafadan waxaa la cabiray xilligii dowladii kacaanka. Dukumentigiisa waa uu dhan yahay. Nootayo alle midaa jeceshahay ayaa lagu geynayaa insha Allahu tacaala si lagaaga hubiyo sax ahaanshaha dukumentiga. Haddii aan nahay shirkadda Dallas Real Estate waxaa mar walba ku dadaalnaa amaba idiin soo gudbinaa dhulalka dukumentiyadooda ay sax yihiin, dukumentiyada originaalka ah leh. Marka laga faa'iideysto waa fursad. Haddii aan walaalayaal ugu dambeyntii aan ka hadlo qiimaha ama lacagta gurigani lagu rabo. Walaalayaal gurigan villada ah waxaa lagu rabaa $165,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal iyo heshiis. Lacagtaas 165 ah waxaa ka furan heshiis. Waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhamaado. Haddii aan shirkadda Dallas Real Estate waxaa ku dadaaleynaa in intii macquul ah laga dhimo. Marka ku soo dhawaada walaalayaal, lacagta gurigani waa u qalmaa maxaa yeelay waa guri dhisan taag ah, si casri ah u dhisan. Dhismaha kaliya ayaaba maaragtay lacag fara badan ku baxaysa. Waad ogtihiin guri in la dhisaa inayna sahlaneen. Tan kale waxaa muhiimka oo mar walba la fiiriyo marka guriga saan camal u dhisaan waxaa waay xaafadda uu ku yaallo. Villada noocan oo kale waxaa qiimaheeda xukumaya hadba meesha ay ku taalo, booskeeda waxa uu ahay. Haddaa si jiracsan u dhaho xaafadana boosaskeeda bannaan ayaa waxaa la 100 wax ku darsanayo. Marka waa qiimo macquul ah ayaa dhihi karnaa. Lacagtaada meesha gelinaysa lama fiiriyo, yacni lacagta ma badan tahay iyo meeqa waa cadadkeeda. Lacagta waxay wax ku tartaa sideedaba qiimaha ay ku fadhido ama waxa ay goyso ama waxa ay tarto. Lacagta haddaa bixiso oo gurigan aad ku bedelato, gurigan waxtarka uu leeyahay bal fiiri. Lacagtaas maxaa ka faa'iiday, maxaa ku heshay? Guri laba laami u dhow, suuq u dhow, elaboorka ayna ka fogeen, isbitaaladii waaweynaa Madiina Banaadir ayna ka fogeen, degmada Wadajir iyo Dharkeenle sidoo kale xarumo badan ay leeyihiin, waxbarashadii, jaamacadihii. Yacni waa meel aad iyo aad istiraatiiji u ah. Marka lacagta ka bixiso uma shilaynaysid. Walaalayaal haddii aan ugu dambeyntii ama marka ugu dambeysa ka hadlo waxyaabaha uu gurigani ka anfici karo. Kow wuxuu ka anfici karaa deegaan, maxaa yeelay waa meel camiran oo aad loo degan yahay. Villooyinka dabaqyada waad aragtaan sida muuqaalka idin muuqato, weliba meelo badan oo soo duuban ayaa jira. Marka waa meel deegaan ku fiican, suuqi adeegyadii nolosha loo baahnaa dhan ay wada dhan yihiin. Midda labaad wuxuu ka anfici karaa yacni maalgashi ahaan, maxaa la dhul ayatiin leh, meel fiican ku yaala. Elaboorka waxaa waaye wax oo aad maaragtay u yar oo ku jira. Marka istiraatiijiyadaas mustaqbalka waxay keeni kartaa meesha inay qiimaha oo kor u kaco. Waxaa kale labada laami oo haysto. Marka waa meel maalgashi ku habboon. Sidoo kale haddii aad kireysanaysid gurigan, haddii aad gadatid sidiisa ku kireysanaysaa.
lacagana bil kasta kaa soo gelaysa. marka saddexdaas hab ayuu idin anfacaya maalgashi deegaan iyo kiraba. walaalayaal ugu dambeyntii waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayna insha allahu tacaala. Facebook follow naga soo dhaha. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.